السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقال كلي مالن كلا قروح بدن حرجينا إنه عافمات قبل سيدنا وعافمات قبل الحمد لله إلى ما تسكله أقول سلام حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت مقال كان حكوسة بسنة هي مقالة يتبوري مقثم باك أنت أنا مقال كوسي جود الجلين فضلا وحي لسماجي لسماي سبسكرايب لايك كومنت وما سنته. Göteborg waa magaalada labaad ee ugu weyn Sweden kadib Stockholm oo ah caasimadda. Magaaladan waxay ku taal koonfurta Sweden waxayna ku teedsan tahay xeebaha galbeed ee waddankan. Göteborg waxay soo gelaysaa lambarka 5aad marka la eegayo magaalooyinka ugu waaweyn waqooyiga Yurub oo ay ku midaysan yihiin 5 waddan kuwa oo kala ah Sweden, Norway, Denmark, Finland iyo Iceland. Shabakadda ku shaqada leh caalamiyeynta iyo cilmi baarista magaalooyinka adduunka waxay Göteborg u aqoonsatay magaalo caalami ah ayada oo siisay darajada Gamma. Shabakadda oo loo yaqaan Globalization and World Cities Research Network. Magaaladan ka magaalo ahaan waxaa ku nool in ka badan 600,000 halka ay aagga magaalo madaxda u tahay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo ruux. Göteborg way magacyo badan tahay bilowgeeda inta aysan magaalo rasmi ah loo aqoonsan oo ay ku jirtay qorsheynta magaalanimo waxay ka dhaxashay magaca Amsterdam tii cusbayd Hollandeeskii wada qorsheynta magaalanimo ee magaaladan. Göteborg waa magaalada kaliya ee magac Ingiriis ah wadata guud ahaan Sweden ka oo ah Gothenburg. Naanays kale oo ay leedahay ayaa ah London tii yarayd oo ay ula baxeen isla Ingiriiskii halkan ku noolaayeen xilligii warshadeynta ka oo ilaa maantadan loo yaqaan. Bagga hore Sweden ayaa ka mid ah naanaysada ay leedahay magaaladan taa oo loo sababeeyo halka ay ku taal iyo isku xirka tooska ah ee marinada maraakiibta caalamiga ah ee mara dekedeeda. Qayb weyn oo ka mid ah dhoofinta iyo soo dejinta waddankan Sweden waxay ka dhacdaa dekedda Göteborg taas oo ah tan ugu weyn gobolkan waqooyiga Yurub. Qaar ka mid ah warshadaha waaweyn ee Scandinavia ayaa asal ahaan halkan ka soo farcamay isla markaana ku leh xafiisyadooda guud ilaa iyo maantadan. Tusaale ahaan sida Volvo, SKF, ESAB, Hasselblad, Stena Line iyo kuwo kale badan. Magaalada Göteborg waxaa ka socda ganacsi ballaaran oo ku yaal bartamaha iyo nawaaxigeeda. Waxaa jira dukaamo badan oo kala duwan iyo goobo ganacsi oo laga dukaamaysto sida Nordistan oo ku taal bartamaha magaalada. Nordistan waa xarunta wax iibsi ee ugu sareysa liiska 10 xarumood ee wax iibsiga ee ugu weyn dalkan. Göteborg waxay u shaqeysaa sidii xudunta isku xirka wadooyinka galbeedka Sweden iyo waqooyiga Yurub. Göteborg waxay Stockholm u jirtaa masaafo dhan 469 kiiloomitir ama safar qaadanaya 4 saacadood iyo dhowr iyo 50 daqiiqo. Halka ay Oslo oo ah caasimadda Norway u jirto masaafo dhan 299 kiiloomitir ama safar qaadanaya 3 saacadood iyo bar. Göteborg waxay Copenhagen oo caasimadda Denmark ah u jirtaa masaafo dhan 316 kiiloomitir ama safar qaadanaya 3 saacadood iyo dhowr iyo 20 daqiiqo. Isku socodka magaalada ama waddanka dhexdiisa ayaa ah mid aad u sahlan marka loo eego magaalooyinka la midka ah magaaladan. Gaadiidka dadweynaha ayaa u kala baxa tareen, doon, bas iyo tram. Tramku waa tareenada yaryar ee ka dhex shaqeeya magaalada dhexdeeda. Göteborg maanta waa mid ka mid ah dhowrka magaalo ee waddankan Sweden weli isticmaala tramka. Waxyaabo muhiimada dheeraadka siinaya magaaladan marka laga tago halka istaraatiijiga ay ku taal waxaa ka mid ah garoomada diyaaradaha, dekedeeda iyo jaamacadaheeda. Magaalada Göteborg waxaa ku yaal dhowr masjid. Haddii aan labada ugu waaweyn tusaale ahaan u soo qaadano
mid waxaa la yiraahdaa Göteborgs Moské, kan kalena Sunni Center ama Bellevue Moské sida uu caan ku yahay. Göteborgs Moské ama haddii aan fasirno noqonayo masjidka Göteborg waxaa lagu oogay cibaadadiisa ugu horeysay taariikhdu markay ahayd 16 Juun sanadka markuu ahay 2011 kadib 26 sano oo dadaal ah kaas oo halgankiisa kasoo bilowday tan iyo 1985. Muslimiinta Göteborg waxay soo wadeen ka shaqeynta helitaanka dhulka. Masjidka Bellevue waxaa la aasaasay sanadka markuu ahay 1993 waxaana maamula xarunta Islaamka ee Sunniga. Bellevue Moské waa kan ugu weyn Göteborg iyo weliba gobolka Västergötland ka oo u adeego una ah sidii udub dhexaad bulshada muslimiinta ee magaalada. Qaybo badan oo Göteborg ka mid ah ayaa ka kooban goobo cagaaran, jardiinooyinka ay si fiican u soo booqdaan dadka deegaanka iyo kuwa dalxiiska u yimaada ayaa kala ah Trädgårdsföreningen, Kungsparken iyo Hagaparken. Göteborg waxaa ku yaala matxafyo badan oo aad booqan karto. Kuwa waxaa ka mid ah matxafka dhaqanka adduunka ka oo lagu soo bandhigo mawduucyo ka turjumaya magaciisa. Meel aan sidaas ugu sii fogeyn waxaa ku yaal Universium oo ah xarun saynis iyo matxaf. Waxyaabaha aad ka heli karto halka ayaa waxaa ka mid ah wax walba laga bilaabo liwax badeedyo iyo kaymaha roobka ilaa iyo tijaabooyin saynis oo xiiso. Matxafyada kale ee cagta ku badanta waxaa ka mid ah matxafka fanka, kan magaalada iyo matxafka badda. Göteborg mar haddii aad timid waxaa qasab ah inaad booqato Liseberg. Liseberg waa beerta madadaalo ee ugu weyn waqooyiga Yurub taas oo la furay sanadku markuu ahay 1903. Liseberg waa goobta dalxiis ee Sweden ugu weyn taa oo sanadkii soo booqdaan 3 milyan oo ruux.